Asalaamu calaykum walaalahey qaaliga ah, waa idin salaamay meel kasta adduunka joogtiin. Waxaan idin rajeynayaa inaad caafimaad qabtiin. Waa walaashiin Hinda, kanaalka igala socotiin waa Simply Hinda. Maanta waxaan idin wadaa sida aan u sameysto dooro ama digaag foorno la'aan, oona aad u fudud sidan quruxda badan lana noogu soo baxday. Haddana waxaan u guda galaynaa waxyaabihii aan ku darsan lahay doorada ama digaaga iyo sida aniga aan u hagaajiyo. Waxaan u horeeya u baahnaana waa dooro ama digaag iyo xawaajiyo kala nooc ah. Meeshaas waxaa iigu jiro yogurt iyo yaanyo shiidan, intana khal iigu jiro. Haddaa rabtid liin dhanaan waa ku darsan kartaa, khalka iska dhaafi kartaa ama labadaba waa isku dari kartaa. Xawaajiyada iyo qiyaastoodana qaf iyo tookheyda waaye. Intaan markaan ku wada gediyo waa inaan si fiican isu dhex geliyaa si ay meel kasta uga gaarto doorada ama digaaga. Anina waa lugaha waxaan isticmaalayo. Arrin yarna inaan la wadaago waa muhiim. Saa aragteen baan gacanta waxaa iigu jiro gloves, hal gacan lana iigu jirto. Anaa idin sheegi doona sababta. Laakiin doorada ama digaaga ma dhaqo. Waxaan lahay haddaa dhaqtid iyo haddaa iska dhaaftidba waa isku mid. Bakteeriyadeeda ma dhammaato ilaa dab laga saaraa ama dab laga geliyaa oo xaraaradana 30 degree ee ka sareyso. Marka qofka taqaana way taqaanaa, qofka kalena ha ka faa'iideysato. Marka wax macnaa ma keenayso si kasta oo dhaqaa haddaa dhahdo bakteeriyada la sii faafinaysaa. Meesha ku dhaqday, weelashiya ku dhaqday, gacmahaagii. Marka aniga sababtaan halka xabo gloveska aan isticmaalayn waxaa waaye meesha aan joogo hadoo kale ma la helo. Haddaa heshidna waa nasiib. Marka waan dhaqaaleystaa. Lacala hadduu iga dhamaadana waxaan sameeyaa bacda oo sandwichska lagu xirxirto aan gacanta gashtaa. Marka ani hadda waxa iga wasaqoobay waa baaquligaas yarka ah iyo qaandada hadhow isticmaali doono. Labada saytuudin waxaan ku dhaqi doonaa biyo qandacan iyo shaambada alaabta bes. Gacanteedaas kalena aad isaga ilaalinoya inaysan iga taabanin. Mid kalena waa la suubi karaa. Bacyo waxaa jiraan oo lagu shubto alaabaha freezer-ka la geliyo kalo. Waxaa dhan intaa ku shubtid meesha waa ku dhex qasi kartaa. Laakiin waxaan jeclahay inaan mid u dareemo mid sasaan ugu masaajeeyo saa u jeedinba. Marka xoogaa shaqo yar waaye, laakiin sida dhadhan fiican hadhow ku yeelanaysaa. Marka haddana waa kana waa dhameeyay qasitaankii ama isdhexgelinta waxyaabihii xawaajiyadii iyo dooradii iyo khalkii iyo yogurtkii iyo yaanyadii. Si tartiiba markaad isaga bixinaa gloveska, gacanta kalena ma isaga taabanin. Waa in nadiif qashin kale toos hor u geenayaa. Marka hadda waa kana waa daboolaa. Ani waqti waxaan sameynayay subaxnimo ah. Marka ugu yaraan 3 saac inay talaajada ku jirto waaye si ay isu dhex gasho dhadhan fiican hadhow u yeelato. Marka haddaa qado u rabtid haddaa casho u rabtid labadaba waqti hore iska sii suubi. Marka waa kaasaan. Haddana waa tanaha saacada kadib diyaar waaye. Marka aniga saa ula socotiinba kama fiiqin qolofta ama qobka oo doorada ama digaaga sidiisaan ku dhaaftay. Haddana dabka waxaa ii saaran birtaabo aanan waxba ku dhageynin oo kaligeedna ah. Saliid kuma shubaayay maxaa yeelay doorada waxay wadataa maqaarkeeda. Maqaarkaas saliidu dhalaa hadhow. Haddii aadan haysanin qaandada isticmaalayo waxaa suubi kartaa 2 qaando ama fargeeto iyo qaando iskula soo qaban kartaa. Marka ani waxaan u suubinaysaan waxaa waaye gacmaha inaan ku taabsado ma rabo. Haddana waa soo wada saaraa kulli inta baaquliga iigu jirtay oo dhan waa 4 xabbo bes. Marka hore kasii guduunaysa saa u jeedinba maxaa yeelay birta kululeed. Markaan soo wada saaray dheecaanka yarka oo baaquliga iigu harayna waan ku darayaa. Marka waxaan isla arkaynaa markaan gediyo insha Allah hoos ka soo guduudato dhinaca kale aan u gediyo la socod wanaagsan.
تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. haddana waa kan dhinac kow aan ku bilaabay oo hooseeye saan u noqday, dhinaca kale sugayaa isagana intuu xoogaa kasoo gaduudanaya kadib aan biyo ku darayaa, dhadhanka dhan meeshaas uga imaanayaa. hadhow haddana saasoo kale loo gaduudinaa labada dhinacba, waa isla arki doona insha allah. waa kana haddana saani kusoo baxday dhinaca kale, laakiin ma bisla weli. marka biyaan ku shubayaa, biyaha saytuudin waxaan kusoo raacsiinaa baaquligii aan ku qasay marka hore. waxaa ku haray dhadhanaan yar iyo xawaajiyadii ku hareen. marka hadda dabka waa u gaabinaa si ay u bislaato. qaandadii iyo baaquligina saan hore idinkugu sheegay, biyo qandaca iyo shaambada alaabtaan ku dhaqaa. qaando kalena soo qaadanaya. hadda waa kan 5 daqiiqo kadib dhinaca kale haddana u gedinaa. tartiibkeedaas u bislaanaysaa ilaa biyahaas inta ka guursanayso. markaas haddana waa la qalajinaa iyada dhan. فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير. ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعة الذكر فيهدي القلب ألحانا شذاها يفوح بالصدر ويصفو العلم راقراقا ويسقي دوحة العمر فيمحو الكون ظلمته. haddana waatan iyadoo soo bislaatay, waa markaan dooda in la gaduudiyo haddana u baahan. hal dhinaca kasoo gaduuday, dhinaca kale bes u dhiman. marka bes waa hadartaan dhinaca kale haday soo gaduudo saxankaa soo saaranaya. marka birta maka dhamaanaye, maxaa yeelay dheecaankii dhan waxaa ku jiro ee doorada ku bislaatay iyo saliidii ee dhashay. basala marka ku gaduudsanaa, haddana qudaaraan ku subsan doonaa. qudaartaasna waa la arki doontiin. وتشرق بسمة الفجر وتهتف باسمك الدنيا بألوان من الشعر يزغرد كل ما فيها وتزهو في ربى السحر. وزون العز ترسلها بكف الحب والطهر. تقبل صاحبي منا نسيم الحب والشكر. تقبل صاحبي منا نسيم الحب والشكر. أتذكر يوم أن كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. waa kan ahaa saani noogu soo baxday dooradii ama digaagii foorno la-aanta la dubayay iyo basashii yareedan soo gaduudiyey. marka birtaawada weli kama dhammaanin, saan hore u sheegayba qudaar isku dardar ah aniga aan isku aadistay aan ku suubsanaa. casho ahaanaan u isticmaalaya qudaarta, qada daarta waa ka dhigan kartaa. marka waa kana intaan oo kale nuucaan isku darsaday. marka waa kana markay soo bislaatay, xawaajiye nooc alaal nooca rabta ku darsan kartaa. qudaarta nooc alaal nooca rabta inta aniga doortay badinjaan, yaanyo, bocor iyo baaliiriiro ku kuusan oo kabash ku eg. intaas waaye. marka haddana soo noogu soo baxay aan arkayna markaan soo gurto aniga saxankayga iyo cashadeeda siday ahayd. ujeediinba bislaashaha kama badinin qudaarta. haddii bislaashaha laga badiyo ama dabka wax badan ay saarnaato, fitamiinska ka dhimanayo. aniga saana usoo gurtay. marka qudaartii iyo digaagii ama dooradii iyo ansalaato, rooti ma ku cunaayay, wax kale ma ku cunaayay, adiga daarad waa ku cuni kartaa, wax u diidaya ma lahan. haddii ay tahay marka ugu horeysa soo booqanaysa kanaalkayga, waa ku mahadsan tahay soo booqashadaada. fadlan subscribe ii saar. haddii aa hore igula joogtayne like iyo comment iyo share
aad iyo aad aa umahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. تخرج حلمك الأغلى فما الروض بالزهر إليك تهنئة تلون فرحة العمر فينمو الورد بساما وينشر أطيب العطر وتحيا في نجاحات بنور الحق والنصر. تخرج حلمك الأغلى فما الروض بالزهر إليك تهنئة تلون فرحة العمر فينمو الورد بساما وينشر أطيب العطر وتحيا في نجاح